بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام دمان ومدى الصومالية ميك استواد جوكتان ولكن قبيال ديد عبد الحكيم مساعدة إن داود يال بل إله بان دي كل دارشي بل أرنتن إلى داود واربل أنك عياب أرقنا بل هورتا انت هدما إنان قدقلين أرنتان دلو ذاك دونو وحان إذن كأتسانا ياسي الشرف إيا والعلماله iyo karaamiyi mulgale ayaan idin ka codsanayaa in aad channelka ila dhaqaajisaan oo aad subscribe like iyo share baad walaalayaal igu saacidaan channelka waa qabyaaladii TV waxyaabaha aan ku soo gudbino waxa kamid ah yacnii in aan loo wadaagno ummadda oo aan ka wacyi gelino dhibaatada ay leedahay qabyaaladu sal la ajigeed walaal adiguna inaad wanaagga dhiiri geliso ilaahay agtiisana ajar iyo xasanaad baad kaga helaysaa adiga naftaadana waa waxaad tarsatay oo yacnihii ummadeenna shaqada aynu hayno aad nagala qayb qaadatay saa darteed waxaynu isku ognahay dhammaanteed inaynu wanaagga dhiiri gelino intaa hadalkan ku yar dheeraaday haddii aan kaga gudbo waxa aan awal la yaabanayn oo aynu islahayn anu horta lama yaabanayno waan filayay laakiin bulsho in badan ay la yaabanay calamadan tirada faraha badan leh ee aynu lahayn ee maamulada kuwii yacnii maamulada ku saabsanaa maamulada soomaalida waxa aan ka tiriyey horta calamada soomaalidu ay leedahay oo dhan min jabuuti ilaa kenya NFD 10 calam baan ka tiriyo maca Soomaaliya ku jiro markaas مع معمول goboleedada Somaliland kan kilka shanaad ee Soomaalida kilka shanaad dhammaan markaan isku soo tiriyay 10 calam baan ka tiriyay video muddo hore aan soo galiyay YouTube-ka haddaba anigu waxaan filayay marka horeba qabiil bay iska taagneed moogta qabiil kastaba inuu calan samaystay bay ahayd aniga xaggayga ila ahayd imika haddaba way ka sii dhaadhacday halkii hoos ayay uga sii degtay qabaa'iladiibaa calama samaystay calanka ree hebel 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 imika waxaan halka ku soo qaatay xogaa calamo kuwa idin muuqda ah ayaan soo qaatay may fahantiin calamada aan soo qaatay waxaa mid walba ku qoran qabiil maalin hore waxaan arkayay iyadoo waxaa lagu xidho jijinta aduu gacanta lagu xidho oo gacanoo kale laga sameeyey oo calamadaas ayaan arkayay oo badan oo lagu iibinay suuq kamida suuqyada soomaalida inay ahayd baan maray Kenya inay ahayd baan jeclahay yacni dukaan dhan oo buuxuu ahaa walaalayaal Soomaaliya xakeen u soconnaa talabaad maalmahan ama muddooyinka u dambaysa aad bay sheekada qabyaaladu aawanta waxaad arkaysaa ree hebel ree hebel ree hebel ree hebel waxaasaa laga sheekaynayaa yacnii waa reerkiina haddaad usoo haysto ama gabadhay ama wiilow ogow xumaan baad faafinaysaa qabiilkiina haddaad usoo haysto oo aad heesood u saarto waxaad moodaysaa yacni in aad wax wanaagsan soo kordhisay meed soo kordhin ee qabyaalada dadka xasuusinaysaa inuu qof kalena reerkooda kusoo hayso dabeetana la iskugu faano Soomaalidu waa dad bila talent ma lihin run ahaantii waxaan daawanayay channelo YouTuber ah oo yacnihii dad bay ku dhaliilayeen channeladaasi adu challenge ay ciyaariyeen bay dad ku dhaliilayeen waxaan yes iyo no la yiraahdo bay ciyaariyeen ee labadeere botane midna casaanka midna akhtarka yahay la soo garab dhigo dabeetana waxay ku dhaliilayeen qofka inoo leeyihiin maxaad saa noo u tiri marka la yidhahdo waxaa la lahaa waa bila talent qofka laftarkiisa markaad channelkiisa hoos sii raacdana talentigiisuba waa qabyaalad iyo waxyaabaha xunxun iyo isla xitaan iyo hadday TikTok tahay hadday YouTube tahay iyo hadday baraha kalaba tahayba talantiganu markaa waxa weeyaan in aynu yacnihii xumaha ku tafanno takhasuskeenu ma inuu xumaanta noqdaa taas ma talanti baa la yidhaha
may talanti ma talantigu waxa weeyaan yacnihii waxyaabo marka aad soo kordhiso ummadda madadaalo iyo manfacba u leh manfac gaar ahaan madadaalo haddaad wax kala weydanayo yacnihii madadaalo aan yacnihii dee waxyaaba aanan dembina kaa soo raacayn dheef bayayna u lahaanin bini'aadankii haddaba walaalayaal ilaahay dartii miyaanan uga tegi kari weyne qabyaaladda soomaaliyay reerba reerka kale unbuu eedaynayaa car yaa i odhan kara jufayla hoosena ha noqotay car qabiilkee odhan kara qabyaalad baa aan iga maran ma jirto laakiin waxaad arkaysaa reer dhanoole ama qof baa ka odhan reerkaasiniyo noocaasi waa qabyaaladda aada ugu dheeraya kiinuu yaqaana kaaguu yaqaana kooduu yaqaana ku walba u yaqaana soomaali gebigeedba baashaas waayo hadda in uun ka fayowday qabaa'ilada qaar ama kala badh dee maynu halkan aynu hadda taaganna maynu taagnaaneen wallaahi bilaahi tallaahi intaan saa ku soconno in aynu halkaa aynu joogno ka sii dhaadhacno mooyaane marnaba ha filanina in aynu yacnihii wax aynu inaynu horumar baad sheegaysaa yacnihii inay nolosheenu meel hagaagsan ay u tallaabsato waad arkaysaa adduunkii baan tuugsanaynaa qaxoyti baanu ku dulsaar baynu ku nahay waddamo gaalaad tuugsigeenni baa abaar baan marka cabanaynaa ilaahay ha u gargaaray dadkaas iminka ay roobabku ay maasheeyeen mar biyaanu ka cabanaynaa haba yaratee ma nihiin dad inaynu wixii maanta inagu dhacay berita sidii aynu kaga ilaahay baa dee badbaadada hayee sidaynu kaga sii tabaabulshaysan lahayn ma lihin haba yaraatee halka aad maanta ku dhimatay iyaad berina ku dhimanaysaa ka kaa dambeyna ku dhimanaya xuna sidaan si maahay soomaaliya ilaahay intaan ka cabsano miyaynu danaheenna garano boqolba ha u kala goday hadday qabyaaladaas laga madhaan laha yaa dee maanta aqaar yaroo kastaaba halkeedaasunbay wax ku noqon lahayd iminka balfiiri imaaraadku waa dhowr magaalo isku tegey waxaana united state imaaraat carab ay yidhaahdaan waa dhowr magaalo isku tegay weeyaan gebiguba waxaa laga yaabaa inay yihiinba gobol ka mid a gobollada soomaaliya marka haddana waa adiga arkay nimcada si u jaqayaan waa ilaahay ka qabtaba inkastoo xadgudub badan wadaan oo ay soomaalidana ku wadaan falastiinna ay ku wadaan iminka allah u gargaara iyagana ilaahayna iyagana ha soo hadiyo oo nimcada ay ku kibrayaanna ilaahay ha ka qabto hase ahaatee waxa weeyaan dee dhexdooda qabyaaladiiyo ka saaren innagu haddaba wada arkayna soomaaliya qabyaaladu sida ay noo galayso maxaa walaalayaal inoogu wacan in aynu bahashaas ku xanshashaqna maxaa inoogu wacan ilaahay maynu ka cabsano iska dayn ilaahay naga soo hadiyey walaalayaal waa bal aan isku dhaarnay khaasatan raggow waayo dumarka innaga u hogaana hasi faafinta ugu badan dumarka u badan inkastoo ragga dee rag la soo fadhiistay bahasha ay jiraan oo halkaa bahasha un ka kala wado xataa qofka hadduu challenge ka samaysira qabaa'il ogow waa mid ka mid a wacyigelin qabyaalad uu bixiyey weeyaan wuxuu ku wacyigeliyay dadka xumaan buu ku wacyigelinaya qofkaas aakhirana aan maanta adduun baad joogtahay berito inta sida nacnaca labada dhinacsaa lagaaga xidho mara yar cad ayaad halkaa yar dhulka inta lagu kala jeexo aad gali doontaa meel kelidaaya qabiilkaaguna waa kaa soo rawaxayaan walaal waxa weeye haddaad qabiilkaaga u hiilinayso wixii wanaagsan ugu hiili wixii wanaagsan ugu hiili aynu iska dayno walaalayaal ilaahay intaanu ka cabsanno aad baa dii salaamayaa hadalka waa idinku dheereeyey sidoo kale balcar subscribe iyo like iyo share wixii wanaagsan kuley lama taagare iga saacida insha allah aad baa